السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن ميل كستا جوجتان سو دوادا ودرسي تحناها وهليني استعمالك داودا عن دكتور سوقرين waxaan ka hadli doonaa kaniiniga la yiraahdo amoxicillin 1 gram kaniiniga amoxicillinka plus clofenic acidka kaniiniga clofenic acidka waxyeelada uu leeyahay iyo waxa loo isticmaalo iyo qaabka loo isticmaalo ayaa caawa ka sheekay doonaa idinkana hana hilmaaminina subscribe-ta like iyo share nagu saacido insha Allah clofeniga plus clofenic waxaa loo isticmaalaa caabuqyada bakteeriyada iska difaacda amoxicillinka keligiis iska difaacda waxaa kaloo loo isticmaalaa caabuqa neef mareenka qufaca bakteeriyada ah samboorka sinusitis-ka oo fureenka okay midda saddexaad caabuqa kadib caabuqa kaadi mareenka oo loo yaqaano UTI caabuqa maqaarka ku dhaca iyo nabarada okay talooyinka aad siinayo oo in aadan isticmaalin kaniinigan adigoo dhakhtar uusan kuu soo qorin ayaan hadda kaaga sheekay doonaa talooyin muhiim ah waa in aadan cunin dhakhtar la'aan haddii dhakhtar la'aan aa isticmaasho dhibaatooyinka ka imaan doona ayaan kaaga sheekeynaya okay awalan wuxuu leeyahay dhibaatada ugu horeyso wuxuu leeyahay shuban wuxuu leeyahay calool xanuun saa'id ah wuxuu leeyahay lalabo iyo matag wuxuu leeyahay madax xanuun wuxuu leeyahay finan iyo cuncun jirka ku dhaca wuxuu leeyahay caabuq fungus ama fungus oo ku dhaco afka ama xarunta taranka xubinta taranka maaragta haweenka oo ku dhaco kulley waa taqaani waa garan kartiin 7 daal badan uu leeyahay tabar daro daal badan iyo tabar daro 8 wuxuu leeyahay qandho khafiif ah oo aan badnayn macnaha waa socotaa kulayl waa jirkaada waa iska kulul yahay marka qandhadaas daciifka ayuu leeyahay okay dhibaatooyinka halista ah oo leeyahay kaniiniga amoxicillinka waxaa ka mid ah xasaasiyad daran in korkaada aad ku aragto nabro waaweyn oo kaa soo baxo ama maaragtay korkaa dhan ku barbararo maaragtay adiga dhan aa bukis la tiraahdo iyo wuxuu kaloo leeyahay barar wejiga ku imaado ama bushumaha fururyaha ama cuncun oo jirka ku dhaco neefsasho la'aan in aad neefsa weyso macnaha neeftii ay ku dhibto wuu leeyahay asigaas kale amoxicillinka neeftoo kugu adkaata iyo finan badan oo degdeg kaaga soo baxo si habeenkii waa seexatay subaxii markaad soo kacda waxaa aragtay finan badan oo degdeg ah 6 indhaha oo gaduuta ama maqaarka oo jaallo indhaha oo jaallo noqdo maxay ahayde iyo shubankaada oo noqdo ama kaadidaada oo noqoto jaallo okay dhibaatooyinka kale uu leeyahay lambar 7 dhibaato neef mareenka ah wuxuu leeyahay dhibaato neef mareenka ah kaadida oo madow noqota ama calool xanuun daran ha isticmaalin dhakhtar la'aan without dhakhtar la'aan ha isticmaalin xasaasiyad haddaad ku qabto birshininjiga haddaad xasaasiyad ku qabto kaniiniga ha isticmaalin xanuunka beerka qofka beer xanuunka qabo waa inuusan isticmaalin kaniinigan amoxicillinka haddaad keliyaha ka xanuunsan tahay sidoo kaleeto ma isticmaali kartid keliya xanuun haddaad qabto amoxicillinka ma isticmaali kartid 3 haweenka uurka leh ayagana ma isticmaali karaan haweenka uurka leh
ma isticmaali karaan yaysan cunin without dhakhtar la-aan. Okay, dawadan aan kasoo sheekeynay caawa waa dawo qofka bini'aadanka uusan isticmaali karin iyadoon dhakhtar soo qorin. qofkii waxaa arkaysaa wax yaroo wuxuu isku arkaa qaabdarro kaleeto, ama qufac yaroo isku arkaa wuxuu leeyahay kaniinigaasaa u baahanay, kaadidaa gubaysa wuxuu leeyahay kaniinigaasaa u baahanay, caloosha xanuunaysa wuxuu leeyahay kaniinigaasaa u baahanay. haddaba dadweynaha waxaan u sheegayaa inaysan kaniinigaasi aysan isticmaalin without dhakhtar la-aan. na soo dhaweeya, subscribe-ta, like-ta iyo share-ta nagu saaciida insha allah. darsigaana waa sii wadi doonaa had iyo jeer. waxaan samayn doonaa habeen walba taxana ayaan kasoo dhigi doonaa oo daawo tayo leh aan soo bandhigi doonaa oo bulshadeennana dhibaato ku qabto. maxay ahayd dhakhaatiirtana ay arkeen in badan ay kalkulaareeyeen. si daawadaasi aan loo isticmaalin ayaan hadda tala idinka sii rabaa, in aan tala idinka siiyo ayaa doonayaa. waxaan leeyahay shacabkeyga ka taxadira without dhakhtar la-aan ha sameynina. midda kale uu leeyahay kaniiniga waxaa waaye bacteria oo jirka ku jirto oo la yidhaha normal flora aa jirka ku jirto oo ka difaacdo bakteriyaalka kale jirka soo galo. si bacteriadaas aysan kaa dhimanin, kaniinigan awoodda badan ha isticmaalin. waa aqaanaa hooyooyinka waxay sameeyaan daawadan sharoobooyinka oo sida amoxicillin noocyadeeda kala duwan way sameynayaan. waxay sameeyaan inay isticmaalaan ay soo qaataan baakadkeeda lagula imaanaa, sharoobadan waa iga jabtay isi yaale, cunug waa la siinaa. cunuga jirkiisa wuxuu noqonaa mid sii daciifo, bakteriyadii jirka difaaciisa way ka dhimanaysaa. had iyo jeer wax allaal wixii jirkiisa soo galo maaragtay wixii jirkiisa soo galo wuxuu u yahay, wuu u nugul yahay in bakteriya kastoo soo weerarto calooshiisa ama jirkiisa soo gasho inay soo weerarto, sababtoo ah waxaa dhimatay tii jirka difaaciisa. had iyo jeer marka waxaan ku talinaa daawo aan dhakhtar soo qorin oo antibiyootig ama xasaasiyada nooc walba ha noqdo inaan la siinin ciyaalka. adiga weyn hooyo ha isticmaalin, adiga weyn daawo aan dhakhtar kuu qorin ha isticmaalin without dhakhtar. sidaas iyo si lamid ah. marka subscribe-ta, like-ta iyo share-ta nagu saaciida insha allahu tacaala. joogtana waa idinkaga dhigi doonaa, waa cashir taxana ah oo idinkaga soo diyaarino insha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.